sheekh cabdulqaadir aljilaani waxa uu ka mid yahay magacyada had iyo jeer taariikhda islaamka lagu soo qaado oo mar walba la hadal hayo. waana sheekha asaasay dariiqada la yidhahdo adariiqa alqaadiriya oo dariiqooyinka aduruqa suufiya la yidhaahdo ka mid a kuwa ugu waaweyn. waxa uu ku dhashay cabdulqaadir aljilaani taariikhda hijriga ahi markay ahayd 470 gobol la yidhahdo jiilaan oo kaabiga ku haya badda Caspian Sea, maanta aynu u naqaano baxr al-khazarna lagu yidhahdo kutubta taariikhda islaamka. waxaana uu geeriyooday 561 markii taariikhda hijrigu ay ahayd oo ku beegmaysa 1166 taariikhda miilaadiga ah. marka qarnigii shanaad ee hijriga ahaa ayuu dhashay. abtirsiyadiisa waxa uu ku arooraa qoyska rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo alimaam alxasan bin cali bin abi taalib oo faaduma rasuul ay dhashay ayaa uu ku abtirsadaa. xagga cilmiga marka ay timaado nin caalim ah ayuu ahaa oo madhabtan imaam axmed bin xambaliga ah aad ugu xeel dheer oo mufti ku ah, isla mar ahaantaasna madhabka shaaficiga laftiisa yaqaana oo mufti ku ah oo fatwooyinka ku bixiya. waxaa daba jirtay in isaga maanta aad loogu xasuusan yahay xagga tarbiyadda nafta iyo yacni adduunyada inaan laga daba dhicin, had iyo jeer aakhiro laga fikiro, adduunyadana wixii xalaasha ahaa laysku koobo ee aan laga daba tegin waxaa la dhahdo shahawaadka ama nafidoonteeda ah oo laga yaabo in qaarkood marka dambe ay meel adag ku geyeysiiyaan. taa ayaa lagu xasuusan yahay, taa ayaana dadka dariiqadiisa taabacsani ay yidhaahdaan waanu ku mintidaynaa, waanu ku tuntunsanaynaa. khudbado fara badan iyo hadallo badan oo wacdi ah ayaa uu ka tegey oo kutub fara badan oo magacyo badan loo halka inaan ku soo koobi karayn ku xadidan. wakhtiga haddaba uu soo baxay ayaa muhiim ah in la ogaado, markaas ayaa la garan karaya ahmiyadda uu markaa cabdulqaadir aljilaani raximahullah ku lahaa taariikhda islaamka. wakhtigaas baqhdaad ayuu isagu horta ku hana qaaday. baqhdaad markaa waxay ahayd magaalo caasimad ah oo xoolo iyo cilmi iyo adduunyo oo dhammi ay taallo. dadkiina markii yacni xoolo fara badan ay gacantooda soo galeen, fasahaadkii batay oo tumashadii badatay oo marmar badan yacni waxyaabaha laga sheego aad ku arki karayso uun dhulkan galbeedka maanta. taa ayaa markaa isagu uu ku mintaday dadkii inuu ka soo jiido wacdiyadiisa iyo zuhdiga waxa la yidhahdo oo ah adduunyada inan yacni hala joogo ha laga shaqaysto, laakiin qalbigeena inay kaaga xidhmin oo waxaad ku fikirto iyo waxaad u mintido iyo waxaad u xusilsaaba adduunyo kale aanay ahaan oonad aakhira ilaawin. dad badan baa markaa duruustiisii ku soo xidhmay oo culimo leh oo dadkii xukunka hayay leh. sidaas ayaa markaas tarbiyata nafs yacni nafta rabaynteeda iyo yacni jarakuhaynteeda ayaa lagu xasuusanaya. taariikhyahanada muslimka qaar badan baa markaa waxay rumaysan yihiin tumashadaa la galay iyo isdhigashadaa la isdhigtay inay sabab u noqotay matalan muslimka in laga qaado dhulkii barakaysnaa ee falastiin oo quds nimankii macatab kudirarka ah ee crusaderska la odhan jiray ay qabsadaan yurub ka soo duulay. markii dambe dhowr iyo 60 sannadood kadib markii dib looga qabsaday, raggan ka qabsaday waxay yidhahdaan mu'arikhiintaasi waa raggii sharaabay ama qaatay cilmiyadii iyo wacdigii iyo tarbiyaddii uu ka tegay cabdulqaadir aljilaani iyo abu xaamid alghazali. waa taarikhyahanada qaar baa sidaa rumaysan. maanta laakiin caalam alislaamiga marka la eego yacni afkaar kala duwan oo iskhilaafsan ayaa laga haystaa cabdulqaadir aljilaani. dad baa waxa ay markaa xoogga saareen oo ay ku talax tageen oo ku fogaadeen jacaylkiisa iyo karaamaadka la yidhi waa uu lahaa oo way ka muuqdeen, oo ka tegey waxyaabihii kale ee yacni tacaaliimtiisa ka mid ahaa. culimada kale ee iyagu guud ahaanba aan ogolayn waxaan tasawufka la yidhahdo ama dariiqooyinkan suufiyada ah aan ogolaynina waxa ay markaa waa diidan yihiin oo way rafdayaan waxyaabaha ma garanaysaa cabdulqaadir loo nisbaynayo. meelo badanna gar waa ku leeyihiin oo markii sheekhii laga dhigay yacni martabad la gaadhsiiyey tii bini aadankaba ka weyn dadka qaar gaadhsiiyeen
oo qaar ay gaadhsiiyeen mid kaba korraysatii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtii. su-aal baa meesha soo gelaysoo la odhanayaa yani waxa meesha ku jira waa maxay, waxaanay suuragal ma yihiin, caqliga ma galaan. runtiina waxyaaba badan oo caqliga iyo sharciga diinta midna aan ku bannaanayn ayaa dadka qaar ay u nisbaynayaan sheekh cabdulqaadir aljilaani, isaguna aanu kutubtiisa kaga tegin. dadkii isaga ka dambeeyey ee sida saxa ah dariiqadiisa ama yani nidaamkiisa u raacsanaana aanay ogolayn. laakiin waxaa jirtay aaraadii cabdilqaadir aljilaani caalamul islaami oo dhan bay ku faaftay ilaa indonesiya, ilaa maqrib, ilaa nigeria. yani matalan xarakaadka islaamka ee waaweyn ee afrika ka dhacay, sheekh cusmaan danfodiyo oo reer nigeria ahaa, dhulka sokoto la yidhaahdo, oo dowlad weyn oo islaamiya sameeyey, waxa uu ahaa dadka ku abtirsadaa yani dariiqada qaadiriyada. amiir cabdilqaadir oo isna reer jazaa'ir ahaa, cabdilqaadir aljazaa'iri, oo muddo fara badan oo 22 sannadood la dagaalamayay isticmaalka faransiisku, isaguna dadkaas ayuu ka mid ahaa. laakiin dad kale oo isdhigtay ama lagaba yaabo inay ka leexdeen ayaa maanta la qaadiriyey ayaanu nahay, ama yani dariiqadii sheekha ayaanu nahay, oo markaa yani afkaarta kale layskaga hor imanayo sabab u noqon kara.